guri cusub, nolol cusub, waxyaabo badan baa isbeddel ku socda. Aragtiyo, dhawaaqyo, caraf cusub, cunto qariib kugu ah, xeerar ad adag ee dhanka nolosha. Haddana waxaa jira hal shay oo weli sidiisa ah: jacaylka aad reerkaaga u qabto. Hooyooyin, wiilal, xaasas, walaalo, waxaad rabtaa in dhammaantooda ay noqdaan kuwo faraxsan oo fayaqab ah. Waan ku caawin karnaa. Dunidan cusub aan kula hagno. Si wada jir ayaan ku dhisi karnaa qoysas fayo qaba, iyo adiga oo fayo qaba. Caanaha naaska waa cunto dabiici ah oo dhallaanka u wanaagsan, oo badanaaba hooyooyinka iyo dhallaanka naasnuujintu way ka helaan, oo aad ay isku soo dhawaysaa. Wayna adagtahay in naaska gurinta la joojiyo. Waqti ugu habboon ee la joojin karo naaska gurinta waa goorta dhallaankaaga diyaar u noqdo inuu bilaabo cunidda cuntooyinka caadiga ah. Waa inuu ku fadhiisan karaa oo madaxiisa si adag kor ugu qaadi karaa. Waxaa dhici karta inuu ku fiiriyo adiga oo wax cunaya, oo xitaa gacantiisa gaarsiiyo cuntadaada ama afbilowgaaga faruurtiisa taabsiiyo. Waa inuu cuntada ilmaha ka liqi karaa qaadada. Haddii aad siiso qaado buuxda oo cereal ah oo uu soo tufo, waxaa dhici karta inuusan diyaar u ahayn cuntada ilmaha. Marka koowaad ku bilow in dhallaankaaga aad siiso wax yar oo naaska caanaha ah, oo kadibna ugu beddel wax yar oo cuntada ilmaha ah. Marka ugu horreysa sii wax yar oo cunno, oo kadibna cuntada dhammaysta adiga oo siinaya caanaha naaska oo badan. Carruurta intooda badan waxba ugama jiraan nooca cunto ilmeedka ee marka koowaad aad siinayso. Takhaatiirtu intooda badan waxay ku taliyaan in dhallaanka marka koowaad cereal la siiyo, oo kadibna khudaar, hilib iyo miro la siiyo. Laakiin qaabka la isku xigxijiyo cuntooyinka wax farqi sidaas ah ma sameeyaan ee sida caafimaadaysan ee ubadkaagu u korayo. Haddii aad doorato in cuntada ilmaha aad dukaanka ka soo iibsato, xulo cuntooyin gaar ahaan loogu diyaariyay in ilmaha la siiyo. Cuntooyinka ilmaha nafaqo dheeraad ah ayaa ku jirta oo ilmaha loogu talagalay si iyagoo caafimaadaysan u koraan. Haddii aad doorato inaad samaysato cuntada ilmaha loogu talagalay, ka bilow digirta, galley ama bataatiga macaanka. Iska xaqiiji in aad si khafiif ah u jukayso oo aad ka dhigto qadar dhallaanka uu si sahlan u liqi karo. Ha isticmaalin koosto, cagaar, digir cagaar, iskuwaash ama karooto, kaasoo ay ku jiraan geedo yaryar oo ciyaalka aanan ruugi karin. Cuntada ilmaha ee dukaamada lagu iibiyo waa lasoo tijaabiyey oo waxaa loogu talagalay in ilmahaaga lagu quudiyo. Dhallaankaaga si markiiba hal cunto ku cusub sii, oo kadibna sug 3 maalmood ka hor inta aadan siin cunto ku cusub. Ka fiiri falcelin ah inuu jirka diido, sida nabaro yaryar, shuban ama matag. Ka fiiri haddii dhallaankaaga aad dhibaatooyinka ku aragto, ka jooji in aad siiso cunto cusub oo takhtarkaaga kala hadal. Inta dhallaankaaga uu korayo oo cuntada afkiisa ka gelin karo, waxaad ku bilaabi kartaa inaad siiso cuntooyinka afka uu gashado. Iska xaqiiji in wax kasta oo aad siiso yahay cunto khafiif ah, si sahlan loo liqi karo, oo gabal yar aad u goysay mid la cabbir ah faryaradiisa. Tusaalooyinka waxaa ka mid ah muus, ukun la kariyey, baasto si fiican loo kariyey, digaag, iskuwaash, digir ama bataati. Iska xaqiiji in cuntada oo dhan si khafiif ah loo kariyey, oo la jug dhabay ama qaybo yaryar loo jarjaray. Ubadkaaga marna ha siin cunno kasta oo aad isleedahay wuu ku mergan karaa, sida cuntada rootiga iyo hilibka la isgeliyo hot dogska. Lafta miraha waxaa ku jira daangada, miro canab, tufaax jaran, khudaar ceyrin, farmaajo isku dheggan ama loos shiidan ama nacnac. Waa wax lagu maaweelaysto in la fiiriyo dhallaankaaga wejigiisa inta uu isku dayayo isagoo tijaabinaya cuntooyin ku cusub, oo adiguna waad ka bogan kartaa inaad fiirsato isagoo baranaya inuu naftiisa quudiyo inta uu si caafimaadaysan u korayo. Wadajir uga wada shaqaynaynaa si aan u dhisno qoysas fayo qaba iyo
adiga oo fayo qaba.